kulanti wacan wanaagsan daawadayaasha qiimiga iyo qadarinta madana oo ilaahantii meel kasta joogtaanba waa mar kale iyo barnaamijkeed uga barateen inuu idinka soo baaho bartamaha Toronto magacaygu waa Maxamed Daahir Xasan waxaan idin leenahay sanadka cusub ee 2015 waa mid kale oo sanadka masiixiga waxaan idin leenahay wad ku mahadsantihiin barnaamijyo hor leh inaan idin soo gudbino ilaahay u naxariistay marxuum Muuye Qaasin Sheekh bin Sheekh oo ka tirsanaa duqowda Soomaalida ee ku nool waddanka Canada ayaa dhawaan ku geeriyooday magaalada Kitchener ee iyadoo ku taala duleedka Toronto marxuumka oo kamid ahaa duqowda Soomaalida ee sida weyn looga yaqaanay waddanka Canada ayaa waxa uu ka tirsanaan jiray halgamayaashii Soomaaliya waddanka Soomaaliya markii xorriyadda loogu halgamayay dadkii loo yaqaanay horseedka waxaana si weyn uga qayb qaatay xorriyad u dagaalankii iyo horumarintii ummadda Soomaaliyeed intii ka dambeysay burburkii iyo qixii Soomaaliya ama dadka Soomaalidu ay soo qaxeenna waxa uu ku caanbaxay inuu ka qayb qaato ummadda Soomaalida ee ku nool waddanka Canada sidii la isugu soo dhaweyn lahaa isla markaasna loo qayb qaadan lahaa waddanka Canada ee aan ku noolnahay sidii wax loo qabsan lahaa marxuumka waxa si weyn loogu xusuustaa hadii jeer inuu caruurta iyo dhalinyarada iyo da'yarta ku dhiirigelin jiray inay wax bartaan isla markaasna dad waalidkood iyo dalkood iyo dad diintooda intaba ay anfacaan waxaana ilaahay u naxariistay marxuum Muuye Qaasin Sheekh bin Sheekh la oran karaa waxa uu kamid ahaa duqowda ama odayaasha farkutiriska ee Soomaaliyeed ee waddanka Canada ee si weyn uga qayb qaatay sidii bulshada Soomaalida ee waddankan Canada ay waddankan wax uga noqon lahayd isla markaasna ay wax ugu biirin lahaayeen dalkii hooyo haddaba anoo ka faa'iideysanaya fursaddan waxaan jeclahay in halkan tacsiib u soo marino qoyskii qaraabadii iyo eheladii uu ka geeriyooday marxuumku annagoo leh inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun kullu umri lahu saaca ma dhinta waa ilaahay qof walba mar buu dhimanayaa haddana waxaan leenahay eebbe samir iimaan idinka siiyo waa aabihiin iyo odaygii Soomaaliyeed Muuye Qaasin Sheekh bin Sheekh waxaan si gaar ah tacsiida ugu direynaa xaaskii uga geeriyooday waa hooyo Siraad Mulyax iyo dhammaan awlaadii uga geeriyooday intuu dhalay iyo intay sii dhaleen iyo dhammaan waalidka dadkii uu ahaa oo faraha badnaa iyo guud ahaan dabcan ummadda Soomaaliyeed dadka sida gaarka ah ugu xusi kara waxa kamid ah Professor Maxamed Muuye Qaasin oo si weyn loogu xusuusto horumarkii uu ka gaaray ama uu ka qayb qaatay in ummadda Soomaalida ee waddanka Canada ay meel ka soo baxdo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun samir iimaan ee baynaga siiyo dhamaanteen gaar ahaan qoyska ka geeriyoodayna waxaan leenahay samir iimaan waa tahay isla docda kale bahda saxaafadda anoo ku hadlaya magacooda waxa ay halkan tacsiib ugu gudbinaynaa dhamaantayo oo aan uga tacsiinaynaa geerida naxinta leh ku timid adeerkiis waa Muuye Qaasin Sheekh bin Sheekh saaxiibka iyo Cali Bakri Sheekh bin Sheekh oo isagu ka tirsan saxaafadda waddanka Canada Soomaalida si weyn loo yaqaano inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun samir iimaan baan leenahay dadka idilna waxaan leenahay awlaadii ka tago saaxiibadii wada ahaa ilaahay samir iimaan ha idinka siiyo daawadayaal qaybta kale barnaamijka haddii aan u guda galno dulucda ugu weyn waa qayb ka tirsan dhinaca isboortiga sanad walba marka la gaaro xilliga dugsiyada la xiro ee fasaxyada waxaa la qabtaa barnaamijyo loogu talagalay in ubadka la isugu keeno isla markaasna looga ilaaliyo mukhaadaraadka iyo maandooriyaasha iyo waxyaabo badan oo lamid ah haddaba xilliga fasaxa lagu jiray ee sanadka dabeeqadiisa waxaa lagu qabtay barnaamij aad u qiimo badan garoomada dadan ee ku yaala magaalada Toronto mid kamid ah waxaa soo qabanqaabiyey Diinaay Cali Nuur iyo saaxiibadii oo kamid yahay Obaare waa Maxamed Aweys Sheekh oo loo yaqaanay Obaare waxay soo qabanqaabiyeen barnaamij socday dhowr maalmood oo aad qurux badnaa koox badan ma ka soo qayb qaatay tartan ciyaaraha kubadda cagta ayuu ahaa oo ay dhowr kooxood isku arkeen gabagabadiina kooxda Downtown-ka ay ku guuleystay inay qaadato iyadoo Hilaac kooxda la yiraahdana ay kaga guuleysteen waxa muhiim ah isu keenidista imaatinka bulshada ka qayb qaadashada waalidiinta iyo dhammaan dadka kale xirfadlayaasha dhinaca isboortiga oo isugu imaanaya goob kaliya oo mujtamaci oo dhan isku arkayo taas oo iyadoo ah mid aad iyo aad muhiim u ah waxaase dhacday mararka qaarkood goobahaas la isku arko inaad ku arkaysid dad sameynaya falal aan loogu talagelin ama aan ku habboonayn
dhalinyarada ayaad arkaysaa qaarkood in ay sameynayaan dagaallo saaxiibadood ay isdagaalamayaan waalidiinta quladoodu ma reebaan oo ma qabtaan oo ma yiraahdaan war joog oo meel fariiso waxaad arkaysaa waalidiinta quladoodu waxay la duuban yihiin ubadkooda had iyo jeer annagoon oranayn waalid gaar ah laakiin waxaan ka hadlaynaa guud ahaan ummadda Soomaalida waxaa muhiim ah isboortigu inuu yahay al-aqlu saliim fil jism saliim maskaxda caafimaadka qaba waxay ka timaadaa jirka caafimaadka qaba haddaba waa muhiim in bulshada la hormariyo dadkeena ay isu yimaadaan la wada tashado ubadkana meel la isugu keeno maalmahaas oo kale waxaa soo qabanqaabiyay barnaamijka saan u sheegnay Diinay Cali Nuur iyo Owbaare Diinay bal waxay nooga waran ujeedada aad u qabateen iyo dadka ka soo qayb qaatay kooxaha tiradoodu intay tahay wax yar nala qaybso kooxaha ka soo qayb galay waxay ka kala yimaadeen Mareykanka iyo Canada sida Rochester New York Ohio Windsor Hamilton Kitchener iyo kooxo ayagu ah kooxaha ka dhisan magaalada Toronto sida Hillaac Safe iyo downtownka muhiimadda u qabanayna waa in dhalinyarada waqtigan xagaaga ama waqtigan winterka aan u qabano ciyaaro maadaama ciyaaro jirin iyo inay isbartaan oo ay ku walaaloobaan isboortiga waad garanaysaan waxa uu yahay wax aan qabiil lahayn siyaasad lahayn caafimaadkana aad ugu wanaagsan alxamdulillah maanta waa soo gabagabaynay koobkii waxaa qaaday kooxda downtownka oo ayadu sanadkii shanaad ay ka soo qaybgalaysaa sanadii hore kumay guuleysan laakiin sanadkan ku guuleysay waan gartay Owbaare maxaad ku daraysaa inta uu yiri Diinay anagoo og barnaamijkan inuu yahay mid aad iyo aad muhiim u ah aan maanta aan farax ku ahay ciyaaraha inta lagu qabtay iyo xalay iyo maanta waqtiga ku dhuminay laakiin waa ku guuleysanay alxamdulillaah rabbil caalamiin taas ilma yaryar oo da'dooda 8 sano ilaa 12 sano ayaa meeshan maanta isku yimaadeen oo yaryar xidigaha iyo sooska kooliraha iyo oo isku baranayay oo iswalaalsadeen oo dheel fiican bujiyeen waa tahay aad baad u mahadsantihiin sidaad arkaysaan dad badan baa isugu yimid halkaas wuxuuna ahaa barnaamij qurux badan waana muhiim in la isugu yimaado oo wax walba la isugu tago lagana wada qayb qaato dhawaan ayaa telefishinka weyn ee loo yaqaano Bloomberg barnaamijkiisa financialku waxa uu ka hadlay lacagaha adduunku sida ay kala yihiin gaar ahaan sanadkii inaga tagay ee 2014 dollarka oo ah lacagta ugu sareysa adduunka waa dollarka Mareykanka lacagihii kale ama cumladihii kale ee iyagu la tartamayay adduunka 174 wadan sida ay noqdeen midda ugu hooseysay oo ugu liidatay iyo midda ugu xoog badnayd oo iska celisay dollarka la oran karana sanadkaas waxay ahayd 174 wadan oo adduunka kamid ah lacagtii ugu xoog badnayd oo dollarka la tartantay lacagtii ugu xoog badnayd adduunka oo tartan la gashay dollarka waa tahay dad badan oo idinka kamid ah waxaad oran doontaan markaan idin sheegno lacagtaasi ninku ma waashay mise waa caafimaad qabaa waa shilinka Soomaaliga ayaa waxa uu galay kaalinta koowaad adduunka idil lacagta marka loo eego dhaqaalaha adduunka la eegayo qaybta sida lacagtu ay isaga celiso dollarka Mareykanka arintaasi oo ahayd arin dhacdo ugub ah ama cusub ayaa waxay ka fiicisay adduunka qaybaha financialka loo yaqaano magaalada New York iyo meelaha adduunka laga xukumo dhamaantood ayay waxay ku sheegeen in shilinka Soomaaliga uu noqday lacagta ku guuleysatay iska celinta ama ugu sareysa qiimiga halka lacagta Ukraine na ay noqotay mid ugu hooseysa ama ugu liidata marka la eego dhaqaalaha arimahaas waxay ku yimaadaan wadanka iyo dadka dhaqaalahoodu u kobco waxaan halka ka dareemaysaa Soomaalida qurbaha lacagta badan ka diraysa inay arinta ku yeelanayso talaabo ama ay ku yeelanayso raad ku yeelanayso ama ta'thir wax afka Carabiga loo yaqaano taasoo ah in shilinkii Soomaaligu uu taagnaanayo ama aanu hoos uga dhacaynin meeshii muddo badan u taagnaa lacagta Kanadiyaanka ayaa aragteen inay dhulka gasho mar walba mararka qaar koodna kor soo kacdo hase yeeshee shilinka Soomaaligu wuxuu ahaa lacagtii number 1 gashay ama jagada koowaad gashay waxaase nasiib darro ah in dadka Soomaalidu ay ka cararayaan lacagtooda dawladda Soomaaliya inayna lacagta daabicin oo dib u soo nooleyn isla markaasna ayna jirin mas'uuliyadii dadka lacagtooda iyo waxooda inay ku faanaan luqadii bay ka cararayaan Soomaaliga ahayd ayagoo luqada kale u cararaya horena waxaan ku soo gudbinay barnaamijyo arinta ka hadlaya oo af Carabiga iyo luqada kale ayay hadi jeer daba ordaan waxay ka cararayaan lacagtoodii
waad u jeedaa lacagtoodiina ay ka cararayeen in ay noqotay lacagta adduunka ugu qiimo badan ama ugu xooga badan af Soomaaliguna waa luqadda adduunka ugu qadiimsan horey ayaa loo sheegay ama adduunku isugu raacay labadaba dadkii la way ka cararayaan waxa kamid ah calankoodii bay ka cararayaan oo boqol calan oo yaryar bay sameysteen oo gobol iyo ay u sameysteen kii ay lahaayeen oo astaanta u ahayo adduunka u qurux badnaana way ka cararayaan waa ummadda Soomaalida waa waxyaabaha hadi jeer looga yaabo waa tahay qaybtaasna inta aan uga gudubno daawadayaal wali waxaan ku dhex jirnaa barnaamijyadii aan ugu talagalnay sanadka cusub bal markana aan u jaleecno aan ku nasanno cayaarihii hidaha iyo dhaqanka ahaa bal markana maxaa inagu soo maqan waxaa inagu soo maqan haatan gabdhihii quruxda badnaa oo qalanjooyinka ahaa oo yudka ahaa oo ku noolaa Calgary ayaanu waxaan idin doorbidnay markana aan soo qabanaynaa iyo gabdhaheenii qalanjooyinka ku soo dhawaada I'm
فرحة الله يرهبي
شبتكي أبحي